wadadan oo in muddo burbursaneed isla markaana marideeda ay dhibaatooyin ku qabeen gaadiidka iyo bulshada ayaa waxaa dib u dhis ku sameeyay maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya bulshada reer Muqdisho iyadoo dhismaha wadadaasi lagu guuleystay waxaana loogu magac daray janaar kaahiye. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa xarig ka jaray wadadan isku xirta garoonka diyaaradaha Aadan Cadde gaar ahaan albaabka Marina Gate ilaa wadada dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee janaar kaahiye iyadoo gudoomiyaha uu lug ku maray wadadaasi waxaana ku soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada. gudoomiyaha degmada Xamarjab ee gobolka Banaadir Cabdiwali Cabdullaahi Maxamed ayaa ugu mahad celiyay maamulka gobolka Banaadir dhismaha wadadan muhiim ku ah isku socodka gaadiidka dadweynaha ee caasimadda. inaan maanta joogno gabagabadii inay soo gabagabowday wadadii dibna loo furay ayadoo shalay waxa ay aheeday qofkii kulay waa media waxaan filayaa inuu arkay sida ay aheeday maantana sida ay tahay inaad arkaysaan. marka waxaan rabaa insha Allah taala anoo ka faa'iideysanaya fursadaas inaan u mahad celiyo maamulka gobolka Banaadir oo hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa xarig jar kadib la hadlay warbaahinta. marka hore Ilaahay waa mahad iska leh. waxa maanta runtii farxad noo ah guul noo ah in degmada Xamarjab gaar ahaan laanteeda janaar kaahiye ay maanta noo suurta gashay in la soo gabagabay aan furno wadadii loogu magac daray janaar kaahiye ee runtii ka soo bixaysay airportka dhinaca albaabka ku yaala iskool bulisiya ee loo yaqaan Marina Gate oo kadibna ku sii xiriirsan wadadii weyneed ee Afisiyoni. runtii wadadan muhiim waxay u ahayd Soomaalida oo dhan waxay muhiim u ahayd degmada Xamarjab waxay muhiim u ahayd gobolka Banaadir sidoo kale waxay muhiim u ahayd martida Soomaaliya timaada iyo sidoo kale dadka dhammaan Soomaaliya yimaado oo inta badan halkan ka soo baxa. wadada kale ee ka soo baxday airportka Aadan Cadde International Airport ee wadadii caadiga ahayd ee lambar 4 ku dhaceysay wadada maadaama ay dhisan tahay maamul gobolka Banaadir ayaa iyo degmada oo iskaashanayo ayaa runtii muddo hadda ka soo wareegtay 2 bil ku dhawaad oo wadadan ku suurtageliyay in wadadan dib loo furo. laakiin waxa naga go'an inaan bilicda soo celino sida aragtaan wadada hadda ee inta ka bilaabanaysa ilaa airportka tagaysa oo sida wanaagsan loo hagaajiyay in la ilaaliyo oo markaas lagu dadaalo. waa naga go'an tahay inaan sii dhisno wadooyinka inaan sidoo kale ummadda kaashano. gudoomiye Taabid ayaa intaasi kadib waxa uu sheegay in 28 bishan la qaban doono shirweynaha wada tashiga nabadgelyada iyo horumarinta caasimadda oo dhawaan 7 bishan u baaqday cilado farsamo. shirkii dib nooga dhacay ee shirkii wada tashiga nabadeynta iyo horumarinta gobolka Banaadir insha Allah waxa la qaban doonaa oo dhici doona 28 bishan Janaayo haddii Ilaahna gaarsiiyo. Nuur Saciid Karim telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.